kulan waxaan daawadayaal halkani waa janalkeena halbeega wararka qodobada wararka ee caalamka iyo Soomaaliya xilligan aan idin hayno waxaa kamid ah ciidanka NISA oo bilaabay in ay tallaabo ka qaadaan dadka la macaamila al-shabaab iyo sidoo kale odayaal lagu soo qabtay howlgal ay ciidanka booliska iyo kuwa nabad sugidda qaranku ay sameeyeen oo maanta booliska Soomaaliya ay soo bandhigeen. waxaad daawan doontaan afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo ka hadlaya dadka maanta ay soo qabteen iyo sidoo kale xeer ilaaliye ku-xigeenka oo arintaasi ka hadlaya. sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soconaya qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya ayaad daawan doontaan. waa mar kale iyo barnaamij wareedkeena. haddii aad nagu cusubtahay waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto channelkan YouTube iyo halbeega wararka isla markaana muuqaalkan aad la wadaagto saaxiibadaada. hagaagka ugu horeynta haddii aynu ku bilaawno hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa markii ugu horeysay waxa ay bilowday inay tallaabo ka qaado dadka la macaamila dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxa ayna soo saareen digniino culus. hay-adda NISA ayaa howlgal ay sameysay waxa ay kusoo qabatay ku dhowaad 10 ruux oo ay sheegeen in ay la macaamileen al-shabaab isla markaana ee laga soo qabtay iyaga oo kasoo laabtay kadib markii ay la soo macaamileen ururka al-shabaab. waxaa la qabqabtay ku dhowaad 10 qof oo siyaabo kala duwan ula macaamilay argagixisada ayaa lagu yiri qoraal lagu soo daabacay bogga rasmiga ah ee hay-adda NISA ay ku leedahay barta Twitter-ka. hadda kadib waxaa tallaabo waafaqsan sharciga dalka laga qaadayaa cid walba oo u tagta adeecda u adeegta ama u fududeysa howlaha ay ku dhibaateynayaan amniga iyo badqabka shacabka ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalka NISA ay soo saareen. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishe oo warbaahinta la hadlay isla markaana soo bandhigay 7 oday iyo nabadoono aaday deegaanada al-shabaab lana macaamilay kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay in loo haysto in ay kooxda sameeyeen la macaamil maaliyadeed iyo mid maamul loona gudbin doono xeer ilaalinta si loo maxkamadeeyo. tallaabadan ayay hay-adda NISA waxa ay ku sheegtay in ay qayb ka tahay amar ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo ahaa in aan kooxdan lala macaamili karin lana tagi karin meelaha ay ka arimiyaan. arintan ayaa waxay imaaneysaa iyada oo ay dagaalo ka socdaan qaybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan Galgaduud, Hiiraan iyo Bay kuwaas oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ila wareegeen deegaano dhowr ah oo ay horey al-shabaab uga ariminayeen. kooxda al-shabaab ayaa waxay wajahayaan cadaadiskii ugu xoogganaa ee la saaro 12 sano ee lasoo dhaafay waxaana dagaalo iyo beegsi loogu furay deegaano badan oo ay markii hore ka arimin jireen taasi oo qasabtay in deegaano badan ay dib u gurasho ka sameeyaan. hay-adda NISA ayaa la aaminsan yahay inay qayb weyn ku leedahay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyada oo markaa la rumaysan yahay in ciidamada howlgallada ku jira ay ka caawinayso arrimaha xagga sirdoonka. toddobaadkii hore ayay sidoo kale howlgal ay NISA ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxa ay kusoo qabteen 10 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab hub iyo rasaas ay wateen kuwaas oo laga qabtay 3 guri oo ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo ay kala deganayeen iyada oo ay sheegtay in howlgalkan ay fashiliyeen oo ahaa mid la damacsanaa in ay weeraro ka fuliyaan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya iyo sidoo kale xeer ilaaliye ku-xigeenka ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono dadka howlgallada lagu soo qabtay. tan ayaa ciidamada ammaanku waxay gacanta ku soo dhigeen 7 eedeysanay oo isugu jiray nabadoono iyo odayaal dhaqameed kuwaas oo loo haysto inay u hoggaansameen amarka kooxaha argagixisada ah. waxayna ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigeen iyagoo ka baxay magaalada lana soo macaamilay iyadoo la fulinayo faritaanadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in aan lala macaamili karin isla markaana ay bartilmaameed yihiin meel kasta oo ay ku sugan yihiin argagixisadu ayaa waxay ciidamada ammaanku si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada dhex mari kara argagixisada ganacsatada iyo waxgaradkaba. sidaas daraaddeed waxaan maanta ku wareejinaynaa xeer ilaalinta ciidamada eedeysanayaal loo haysto la macaamil maaliyadeed iyo mid maamul ee kooxaha argagixisada ah. haddaba waxaan ummadda Soomaaliyeed uga digaynaa inay la macaamilaan ama u hoggaansamaan faritaanada argagixisada ciddii lagu helana maxkamadda lala toogsan doono Ilaahay idinkii. fariintaas waxaa waaye dadka Soomaaliyeed ee doonaya ama aadaya meelaha ay shabaabku joogaan la macaamilaya sabab kasta iyo sifo kastaba ha ugu tagaanee waxay ciidamadu amran yihiin inay ula macaamilaan sida argagixisadii oo kale. waxaan sidoo kale rabaa inaan si gaar ah shacabka Soomaaliyeed aan ku wargeliyo haddii ay dhimasho ka dhacdo
goobaha argagixisada ay joogaan howlgallada laga wado in dhiigooda uu hadur yahay qofkii la soo qabtana loola macaamili doono sida loola macaamilo argagixisadoo kale 7 eedaysane waqti dhow waxaan horgeyn doonaa maxkamadda hadduu ilaahay idmo waxaana ku qaadi doonaa qodobada iyo aayaadka loo adeegsado ama lagu eedeeyo shabaabnimada wahagaag daawadayaal markana wararka laga helayo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Moqokori oo in muddo ka ariminayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada huwanta ah ayaa waxa ay gudaha u galeen deegaankaasi kadib markii ay isaga baxeen dagaalamayaasha al-shabaab oo iminka wajahaya culayskii ugu xooganaa saraakiil ka tirsan kuwa ciidanka xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay xaqiijiyeen in ay si buuxda ula wareegeen Moqokori isla markaana ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab taliyaha guutada shanaad ee qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada maamulka Hirshabeelle oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab maadaama buu yiri ay garab ka helayaan dadka deegaanka oo markii hore aan ku dhiiran jirin inay soo gudbiyaan xogaha al-shabaab ku aadan balse markan ay u fududeynayaan Moqokori iyo deegaanka Tarde Moqokori waa la wareegay waxa ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meesha la yiraahdo Tarde sidoo kale waxa la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabka iskaashanaya Moqokori sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabka oo iskaashanaya la wareegay argagixisadana waxa waaye markay arkeen gulufka ku wajahan ay ka carareen wax dagaal kama dhicin ma sha Allah dagaalka Hiiraan ka socda looma kala harin haddii maartay xildhibaanada hadday yihiin waa kana xildhibaan Cabdimaalik garabkayga bidix taagan waxa garabkayga midig taagan waa gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax dhaqan iyo siyaasad bal looma kala harin iyo xildhibaan iyo maartay mujtamaca shacabka qaybihiisa kala duwan oo dhan waxay u istaageen in gobolkan ay ka xureeyaan cadowga tusaalana ay u noqdaan gobolada kaleete si ay ayaguna ugu istaagaan oo la dagaalamaan argagixisada dhibaatada ku haysata si ay isaga xureeyaan waxaan dhihi karaa marka waa guul aad loogu farxo anoo marka fursadan ka faa'iideysanahay waxaan hambalyo u dirhayaa oo bogaadinayaa shacabka ku nool gobolka Hiiraan anigoo sargaal qaran aan ahay muddo fara badan aan gobolkan ka shaqeynayay sida runtii ah meelo badan oo shabaabka ay ku sugnaayeen muddo dhowr iyo 10 sano ah oo haddii aan duulaan ku soo aadnay aan imaan weyna waxa noo suura gashay ayadoon shacabkii oo horiya gadaal naga socdo inaan imaanno awalba argagixisadu itaal badan ma islahan shacabka ayay ku dhex gabanayeen shacabkina way dhibaateeyeen hadday dhibaateeyeen hubkiisii u qaatay waa ka hor yimid waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Hiiraan guusha aad horseedka ka tihiin oo maanta ka dhalatay gobolkan Hiiraan waa idinku hambalyeynaya waxaan leenahay gobolada kale oo Soomaaliyeedna ha ku daydaano ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo har iyo habeen u taagan inuu la dagaalamo shabaab saaxiibo fara badan aan ku soo weynay saaxiibo fara badan ay ku naafooween ayaguna waxaan leeyahay abaalkiina Ilaaha gudi kare shaqada meesha aan maanta ka hayno ah ka sii laba jibaarno ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab kaasi oo ku aadan guulaha isdaba jooga ah oo ay ku dhawaaqayaan saraakiisha hogaaminaysa howlgallada ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ka fulinayaan qaybo ka mid ah gobolada Hiiraan Galgaduud iyo Baay dhanka kale wararka ka imaanaya deegaanada maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in howlgalladii ugu dambeeyay halkaas ciidamadu ay ka sameeyeen ay ku qabsadeen deegaano dhowr ah waxaana guluf 3 afla ah uu ku socdaa deegaanada kala Xaradheere iyo Ceelbuur oo ay in muddo ka ariminayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaasi oo kamid ah fariisimaha ugu waaweyn oo ay ururkan ku leeyihiin gobolada dhexe ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka xilligan halka ayaan ku soo gabagabeynayna intaan dib u kulmi doono nabadgelyo.